Sheekh Salaad Shantaay oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa kabaha la dulmaray gebi ahaanba dhaleeceen dusha uga tuuray Babajey isagoona ku eedeeyay inuu yahay shakhsi caannimadiisa aan u adeegsanayn dhanka wanaagga iyo khayrka. Shiiqa ayaa si kulul uga hadlay majaajilista Babajey muuqaalada YouTube-kiisa ku jira kuwaas oo gebi ahaanba uu ku sheegay kuwo aan wanaag iyo khayr ahaynba. Waxa uu ku eedeeyay Babajey in xaaskiisa uu mar sii horeysay si public ah kaga soo duubay video isagoo guddoonsiinaya hadiyad taasi oo ku sheegay sheekha mid haba yaraatee aan waafaqsaneen diinta iyo sidoo kale xishoodka iyo asluubta wanaagsan ee lamaanaha. Waxa uu sheegay in Babajey oo dhowaan video ka duubay wiil yar oo uu ku sheegay inuu yahay wiil hibo faneed leh in uu halkii khayr iyo wanaag u tilmaami lahaa inankan yar ee aan qaangaarka ahayn in si iska tuurnimo ah uu ku sameeyey oo uu usii horkacay fanka iyo heesaha iyo dembiga oo fuxshi ah. dhanka kale Babajey ayaa video soo duubay isagoo ka falcelinayo muuqaalka baraha bulshada sida weyn u qabsaday oo maalin Jimcaha khudbad uu kusoo qaatay sheekha mowduucaasi oo uu dhaleeceen iyo eedeyn dusha uga tuurayay youtuberada caanka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho isagoo tusaale u soo qaatay Babajey ayaa sheegay in sheekha uu si bareer cad uu dad ugu dhex fadeexeeyay isla markaana uu magaciisa masjidka gudihiisa ku dhex xusay iyadoo uu ka doorbiday halkii uu iga baadiyoobi lahaa gudaha magaalada Muqdisho. Waxa uu yiri muunan iga wayn lahayn magaalada Muqdisho haddii mid ama laba qof uu lambarkayga weydiin lahaa ama halka aan ku suganahay si uu si gooni ah wax igu sheego isla mar ahaantaana waanadaasi wacyigaasi way habboonaan lahayd oo waan ka qaadan lahaa. balse sheekha qalad weyn ayuu galay oo waxa uu isaga oo doonayo in la wadwado hadalkiisa uu si bareer cad uu sheekha u istaagay masjid gudihiisa weliba maalin Jimcaha isaga oo soo qaatay buu yiri shakhsiyadeeda oo si weyn ugu gafay Babajey oo ah majaajilista laga yaqaan magaalada Muqdisho. Babajey waxa uu sheegay inuu yahay qof muslim ah oo abaabin iyo tarbiyo wanaagsan oo islaam ah lagu soo barbaariyo lagu soo koriyay, balse waxa uu sheegay inuu yahay qof bini aadan ah oo gaf ka dhici karo. Sheekhana uu u bareeray in uu u gafo oo uu dhaleeceeyo isla markaana waxyaabo aan munaasab ahayn uu ku tilmaamo. Babajey uu isdifaacayo waxa uu soo bandhigay video oo caruur agoomo uu ku sheegay ama waalidiintoodu ay yihiin dad tabaaleysan uu dhowaan tabarucaad ugu sameeyay baraha bulshada isla markaana uu sheegay inuu yahay qof khayrka iyo wanaagga aan loo tilmaameynin oo wanaagga iyo khayrka isaga qudhiisa ay ka go'an tahay hibadiisana ay tahay sidii uu soo gudbin lahaa.